dhibaatadii si u yaraato ay wiilashii soo galaan meesha aniga waxaan uga go'need markaa dhalinyaro ahaan sidii u joojin lahayn gudniinkaas iyo sidii dumarkeennaba aan u cirib tiri lahayn waxyaabaha xanuunada haysta runtii markaa waxaan tagnay kaamam ku dhowaad 50 iyo wax ka badan oo dumar rag iskugu jiro waxaan ka sameynay meeshaas wacyigelin warwaa xariyaha qaxootiga waxaa ku jira madaxweynayaashii berri dhaqaatiirtii berri looyaradii berri war dhaqaaleeya dadka war dadka ama mas'uuliyadiisu ha loo dhigo mas'uuliyadooda waxaan ugu dawladda ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa horeyna waa ugu baaqay ummadan sida ay loo dhaafo waxa lagu xoojin karaa awal shorta gabdhaha iyo hooyooyinka in ay wax la baro qofka muxuu xaqiisa iyo xuquuqiisa dhacsan karaa markuu aqoonteeda leeyahay gabdho faraxsan gabdho guulaysanaya gabdho wax baranaya iyo gabdho adduunka wax la qaybsanaya Development Corporation, and we've done so very much in our humanitarian work. Go as far as possible to work through local organizations to listen to local needs rather than pushing needs from UN organizations and international NGOs to local communities. gabadhii dibku ku dhacday looma fiirinayo maamadii oo gabadh dhashay lama fiirinayo waxaan dhan lama fiirinayo waxa isku wareegsanaa in al xaliyo oo lacag yar lagu xaliyo markuu dhaco waxa looga qaban karaa waa sharci in la helo sharci lagu qaado sharciga hadda noo yaalo waa kii 62 oo GBV-ga wax looga qabto 62 iyo xeer jajabkii uu Professor Hussein sheegay ahayd nimankii bacmadowda qaadanay marka sharcigaas waxa bulshada rayidka iyadoo isku duuban waxay ka soo martay dhibaato badan 3 wasiir oo haweenna way ku baxeen soo hooyo kasta gabadha waxay u rafaadinaysaa waa guurka mustaqbalka soo guurkii qofka guursan lahayd hadduu yiraahdo ha sameynin way yaraanaysaa